waxaan joognaa aan taaganahay goobtii argagixisada ay ka geysteen dhibaatada waxay ahayd shalay casarkii ay ahayd xilliga ay galeen meesha ay qaraxa ka geysteen waad aragtaan waqtigooda meesha uu daadsan yahay ilaa khasaaraha hadda uu sii kordhayay xalay ilaa 4 saac xilliga la soo afjaray intaan anaga markaas ogeyn waxay ahayd 12 isla xalay waxa laga soo saaray burburkan ilaa 3 qof oo kala laga soo saaray tirada waxay ka dhigaysaa 14 saaka waxa la ii sheegay sidoo kale in dad kale laga helay tirada ilaa haatan inta hadda aan ognahay waxay gaaraysaa ilaa 16 qof burburka khasaaraha soo gaaray hantidana waad aragtaan ilaa iyo 20 baabuur waaye burburka waxyaabo uu soo gaaray iyo wixii ka dhawaa oo dhan oo burburay waxaan rajeynayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo inay sidaan oo kaleeto waxaan ku dhahay ayaguna waqtigooda uu banaanka u daadsanaan doono ummadda Soomaaliyeedna shacabka Soomaaliyeed ma aqbalaayo mana aqbali doono inuu waxaan ku dhahay inuu argagixisada inay cabsi geliyaan argagixisadu dhibaato ay ku hayaan waa aragtaan hadda saddexdii meesha soo gashay meedadkoodii waqtigoodii meesha u yaallo waxaan rajeynayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo in ay yaraadaan dhibaatooyinka noocaan oo kaleeta waxa lagu jiray 10kii dambe ee Ramadaan qof cibaadeysanay waad garan kartaa waa shuhada dadka meesha ku dhintay sidoo kale tacsi waxaan u dirayaa dadkii ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay intaba waxaan leeyahay kuwii ku dhintay shuhada ayaa tiidin waxaan u rajeynaynaa janno inuu Ilaahay geliyo kuwii ku dhaawacmayna waxaan leenahay Ilaahay ha idin soo boogadhayo Ilaahay caafimaad degdeg ah ha idin siiyo dadka wax yeelooba dhamaantood ehelada dadka wax yeelooban waxaan leenahay waxay ka wada dhinteen dhammaan ummadda Soomaaliyeed tacsi baan u direynaa eheladii ay ka geeriyoodeen kuwana waxaan leenahay Ilaahay soo xanuuniyo meydkoodii iyo waqtigooda meesha uu daadsan yahay qof mu'min ah oo waqti Ramadaan oo 10kii dambe la joogo waad garan kartaa oo cibaadaysanayo in dhibaato loo geysto dawladdu marnaba raali kama aha umana dul qaadan doonto insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo qaraxa markii horeeto baabuur Soomaaliyeed ayaa ku dhacay aad ay isaga caabiyeen waxaan ku dhahay ilaaladii hoteelka aad isaga caabiyeen oo u diideen inay soo galaan saacadii hore oo dhan ilaa inta dadka mas'uuliyiinta ahaa ay ka baxayeen intoodii badnaa qaybtii dambana markii waqtigu sii guddiyoobay intay ku mashquulsanaayeen dadka bixintoodii ayay galeen saddexdana arkaysaan kadibna waxaa yimaadeen ciidamada ammaanka ayaa yimid ciidamadii ayaa waxaan ku dhahay ayaa saddexdoodina soo afjaray xalay markay ahayd 4 10kii habeenimo markii xalay ahayd